fariin si gaar ah ugu socota hablaha jecel in ay guursadaan ragga hantiilayaasha ah. muddo ma ku taamaysay inaad hesho oo aad guursato nin lacag leh kaliya raac qodobadan. marka hore waa inaad u ekaataa qof lacag leh. suurtagal ma ahan adiga oo baati $1 wata inuu nin lacag leh ku soo eego. marka hore soo gado dhar qaali ah oo shirkado waaweyn ay sameeyeen si markaad qof walba oo aad ag marto uu indhaha kula raaco. meelaha la isku qurxiyo waa inaad aadaa haddaad rabtid nin lacag leh. ilkaha dhaadheer iska xir, sanka iska habay, wejiga garaafaha leh iska qurxi si wejigaaga looga helo. 3 isku day inaad jiim gashid oo aad jir qurxoon samaysatid, sababtoo ah dadka maalqabeennada ah meelo badan oo adduunka ayay booqdeen. naaga badanna waa ay soo arkeen. waxa ay raadinayaan qof is haysata oo jirkeedu uu dhisan yahay, qof calool weyn ma rabaan. 4 isku day inaad soo wareegtid meelaha dadka lacagta leh ay fariistaan ama ay joogaan, sida meelaha gawaarida lagu kala gato, meelaha kafeeyada qaaliga ah lagu cabo, hoteelada waaweyn, meelahaas oo kale gal. wax badanna ha dalban, kaliya faanta dalbo. markaad ka bataba afka isaga tirtir mara gaar ah oo loogu talagalay, ama meesha ka codso in lagu siiyo wax afka la isaga tiro. 5 bangiyada waaweyn ee dadka maalqabeennada ah ay tagaan akoon ka furo, kadibna ku rido $10. usbuucii 2 mar soo fiirso $10 inuu meesha ku jiro. 6 qof lacag leh oo aad taqaanid haddii aad aragto sawir la gal, qofka la socdana baro, isagana sawir la gal, baraha bulshada ku soo yaaci. 7 dhowr xabo oo af Ingiriis iyo Faransiis ah baro, gawaarida magacyadooda kala baro iyo meelaha loo dalxiis tago. sidoo kale cunooyinka miinuga ku qoran wax un ka baro, waxba ka walwalin, Google ayaa ku jooga. hana ceebaynin oo ha iska dhigan gabar tuulo ka timid oo kale. 8 taxi markaad qaadatid uga deg meeshii aad u socotay meel xoogaa u jirta, inta kale lug ku dhamayso. 9 sawir walba baraha bulshada ha iska soo gelin, sawir aad soo xulatay oo kaliya soo gali, sida adiga oo biyaano garaacaya ama adiga oo faras la sawiran, kuwaas oo micno gaar ah iyo sababo muujinaya. 10 markaad baratid qof lacag leh u sheeg mar walba inaadan lacagta jeclayn oo aadan danaynin, muhiimaduna ay tahay shakhsiyadda qofka. hadiyad ha ka dalbanin, hana ka ogolaanin, iska dhig qof wax walba haysta. ugu dambayn waan kaftamayay, dadka lacagta leh iyaga is yaqaana, iyagaana is aroosa. saaxiibada sharafta leh ee ku xiran bartan, waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe saartaan barta YouTube-ka ee Walaalka Show. waxaan idinkugu soo gudbin doonaa sheekooyin waxtar u leh bulshada iyo kuwa iska maad ah. saaxiibayaal, adinkuna inagu dhiirigeliya like-ta, share-ta iyo subscribe-ta. mahadsanidin.